waxaa ka mid ahaa maalin dhaweed hadal aan dhegaysanaya xasan oo leh ma aqoonsani iyo kan doorashada stateka ka dhacaysa Jubbaland waa mid reer Jubbaland bay aqoonsi uga baahan tahay dadkeedana iska leh wax sharciyada oo dawladda dhexe kaga xidhan ma jirto hadday noqoto waxaas ma aqoonsanayo waxa raacaya waxa weeye adiguna waxa lagu aqoonsanaya sababta isaga oo maanta waqtigiisa dhamaaday teeramkiisii ka gudbay waxa uu maanta ku jira ay tahay xadgudub uu samaynayo dib ha loogu soo noqdo gogasha talada dhulka ha la dhigo kor baan u haynayaa Soomaaliya meeshay gaarsiin waynu ognahay intaasoo sanaynu dagaal sokeeyo ku jiray war dhiigley ma aha dawladnimada Soomaaliya hadduu qofku u arko inay xaafadda uu jooga ay u noqonayso dawladnimada Soomaaliya oo xukunku uu yahay xaafadda uu joogo oo xukunku uu mid yahay sax ma noqonayso xasan waqtigu uu dhamaaday NF talada dhulka dhig Soomaali isugu yeed wax heshiis lagu yahay ha lagu wada shaqeeyo hadday noqonayso inuu qof waliba wuxuu rabo samaysto waxa weeyaan Soomaaliya sida hadda isku tahayna waan garanaynaa waxa isku hayana waa dadkaas Soomaalinimada la wada raadinayo xadgudubta la joojiyo odayaasha Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta iyo dadka shalay kula taagnaa banaanka hadaad is dhageysan weyday iyo waxa isla soo martay aan maanta isku dayin inaad caburin iyo awood ciidan iyo isticmaashay talada dhulka dhig wiilasha yaryarka ee Soomaaliyeed ee aan ugu talagalay cadowga inay dhulka ka xoreeyaan ma aha inaan iyaga isu adeegsano iyaga dhibaato dhexdooda aan ka abuurre talada la soo celiyo waxaan leeyahay beesha caalamka Soomaaliya baahida idin qabteena waa sideedii haddii cid lagu fiirsanayana de intaasoo kharash iyo juhd iyo meydaan soo geliseen cid kastoo Soomaaliya dan kale oo dawlad kastoo dan kalena dariiqa saxda ah u soo marto laakiin anaa idhi iyo sidanaan samaynayaa iyo maslaxada dawlad hebla saasa ku jirta Soomaalida ma anfacayso